xisbiga mucaaradka ee Ucid ayaa taageeray shirka golaha dhexe ee xisbiga sida warkaasi noogu soo diray weriyaheena Abdilahi Baafo. Masuliyiinta Xisbiga Mucaaradka ee Ucid iyo xogayaha arrimaha gudaha ee xisbigaasi ayaa taageeray kulamadii saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland uga socday magaalada Hargeysa waxaana sidoo kale ay soo dhaweeyay shirka golaha dhexe ee xisbigu qabsan doono ee maalinimadii shalay ay ku dhawaaqeen masuuliyiinta ugu sarsareysay xisbigaasi. waxaanu aad u soo dhaweynaa qodobada ka soo yeeray shirka jaraa'id xisbiga cadaaladda iyo daryeelka aad baan ugu faraxsanahay waa xisbiga kaliya ee maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland ka hadla danta wadanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee aan danaysta ahayn haddii aan nahay gobolka Togdheer gaar ahaan gudoomiyaasha waan wax kasto ay go'aamadaas ay fuliyaan aad iyo aad baan ugu taageersanahay waxaanu aad iyo aad u taageersanahay shirweynihii shalay ka dhacay xarunta guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee uu gudoominayay gudoomiyaha iyaga injineer Faysal Cali Waraabe annagoo ah heer qaran heer gobol iyo heer degmaba waxaanu halkan taageero ugu muujinaynaa shirkii ka dhacay shalayto xarunta guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee uu gudoomiye injineer Faysal Cali Xuseen inaanu taageero ugu muujino oo aan isla barbar taaganahay oo aan ku qanacsanahay kuna taageersanahay in doorashadii qabsoonto waxa shirkan jaraa'id uu daaran yahay laba kelmadood oo taageero odhanaya go'aamadii shalay ka soo baxay shirkii hoggaanka sare xisbiga Ucid oo isugu yimi ee lagu iclaamiyay 28 bisha soo socota insha Allah taala in aanu qabanayno shirweynihii aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynaya waxa aan islahayn ficilkiina iyo riyadiina ayaan islahayn baan leeyahay riyadiinuna runtii waa been midnimo Soomaaliyeed oo soo noqonaysaana ma jirto dalkani qarannimadiisii uu la soo noqday kharash kasta ku bixisaan ciyaal yaryar adeegsataan dalkani ma guurayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka sheeganaya khadar shalayna wuxuu ka ahaa kilalka shanaad ayuu maxkamadda ka shaqeynayay ma aha runtii qof meel tegay inuu qadiyadda ummadan bedeli karo ma aflagaadeynayo laakiin waa dhuunay Abdiqani Abdilahi Maxamed Abdiqani Baafo wararka telefishinka Royal magaalada Burco.